maxaad kala socotaa xaqiiqooyinka Titanic iyo weliba filimkii laga sameeyay? haddii aad u malayso inay tahay Titanic filim caadi loo qoray, ma ahane waa taariikh hore u dhacday oo laga sameeyay filim. haddaba muuqaalkan waxaan ku fiirin doonaa taariikhda dhabta ee Titanic iyo weliba qarashaadkii ku baxay filimka iyo warbixino ku saabsan isla filimkaas. daawasho wacan. magacii ugu horeeyay ee loo bixiyay markabkii Titanic markii la sameeyay kadib waxa uu ahaa markabkii aanan quusaynin ama aanan degaynin, maadaama uu markabka ka samaysanaa waxyaabo ka hortagay inuu markabka dego. inkastoo cilada dhacday ay ahayd inuu markabka duqeeyay jabal ku yaalo badda hoosteeda, isla markaasna biyihii ay soo gudbeen markabka gudihiisa. sidoo kale dhibaatada dhacday waxay ahayd inaysan saarnayn laashash ku filan oo lagu daadgureyn karo dadka. sidoo kale markabka Titanic dadkii xilligaa saarnaa waxaa ugu lacagta badnaa Mr. J. Costa oo haystay lacag dhan 87 milyan oo dollar oo maanta u dhigmi lahayd 200 milyan oo dollar haddii ay uu noolaan lahaa asigiyo lacagtiisaba. sidoo kale markabkii Titanic waxa uu ahaa markabkii ugu weyn ee xilligaas la sameeyay, asagoo ahaa 900 feet oo ka dhigan 2 garoon oo kuwa kubadda cagta lagu ciyaaro ah. shaqaalihii markabka ayaa loo aqoonsaday halyeeyo qaran aan waxba laga soo qaadin dayacii markii hore ay sameeyeen, kaliya la fiiriyay go'aanadii wanaagsanaa ay dib ka qaateen. sidoo kale shaqaalaha markabka ayaa marnaba kasoo degin markabka dushiisa ilaa uu ka qarrimay ay ku dhammaadeen, xitaa ay ka mid noqdeen dadkii meydkooda la waayay oo ay sidaa ku dhinteen dhammaantooda. sidoo kale markabkii Titanic waxa uu ahaa markab aad u weyn oo isla markaasna maray tijaabooyin aad u waaweyn. injineeradii xilligaas jiran ay aysan aaminsanaayeen in uusan marnaba degi karin Titanic, waana midda keentay in uu markabka si fudud ku dego oo maadaama ay dhaliilaysteen inuusan noqon karin mid dega. sidoo kale markabka Titanic waxa uu qaadi karayay 200 oo laashashka lagu badbaado, laakiin habeenkaas waxaa saarnaa kaliya 20 laashash, waana midda keentay inuu markabka dego. waxaana uu sii degayay muddo 3 saacadood ah. saas ayuuna markabkii Titanic badda gunteeda hoose filimka Titanic waa filim Mareykan oo la sameeyay sanadkii 1997 wuxuuna ahaa nooca loo yaqaan dramaha. waxaana sheekada filimkaas qoray nin la yiraahdo James Cameron, isla asaga ayaana soo saaray ka ahaa. aktarka filimka waxa uu ahaa Leonardo DiCaprio, halka atriishada ay ahayd Kate Winslet. qoraaga filimka ayaa qorista filimkan bilaabay sanadka markuu ahaa 1995, wuxuuna ninkii ugu horeeyay filim nooca ku dhiirada in uu sameeyo isagoo doonayay inuu gudbiyo ama uu dadka gaarsiiyo faruun sharciyeed oo ku gudbinayo masiibadii iyo laga dareemay markabkii Titanic iyo sheeko jacayl oo ka dhaxdhalatay khasaaraha gudihiisa. 19 bishii December 1997 ayay ahayd markii si rasmi ah loo daawaday filimkii Titanic. waxa uu gaaray guulo waaweyn oo uu helay filimkaas magacaabistiisa. waxaa ka mid ah calaamadaha uu ku guuleystay Academy Award, wuxuuna ku guuleystay in ka badan 12 jaa'isood ay ku jirto abaalmarinta Best Picture Award iyo Best Director Award, waana filimka kaliya leh oo hal mar gaaray oo ku wada guuleystay abaalmarinta Oscar-ka. ku darso oo filimka Titanic waa filimka kaliya caalamka gaaray bilaayin dollar, waxaana ilaa waqtigan yahay filimka ugu weyn ee waqtigan noociisa oo kale ah. qoraaga filimka ama soo saaraha filimka Cameron waxa uu dhaafay soo saarayaal badan oo sumcad weyn ku lahaa adduunka. sidoo kale asagana waxa uu yeeshay sumcad aad weyn. sanadkii 2012 ayaa laga soo saaray filimka Titanic aaladda loo yaqaan 3D. filimka Titanic lacagta ku baxday ayaa ka badan lacagtii lagu sameeyay markabkii si rasmi ah u quusay ee Titanic, waxaana lagu qiyaasaa inay ku baxday 200 milyan oo dollarka Mareykanka ah, halka markabkii tikiiday ee Titanic lagu sameeyay kaliya 184 milyan oo dollar, oo halkaas ay ku caddahay lacagta filimku laga sameeyay inay ka badan tahay lacagtii ku baxday markabkii quusay lacagtii lagu sameeyay. qiimeynta lacagaha ee loo yaqaano box office oo la sameeyo sanad walba, sanadkii markuu 2012 filimka Titanic waxa uu soo xareeyay waqooyiga America kaliya in ka badan 658 milyan, halka adduunka dhan uu soo aruuriyay in ka badan 1 bilyan iyo bar 12 bilood gudahooda. cabirka markabka filimka lagu jilayay dhirkiisa wuxuu ahaa 269.1 mitir 882 feet iyo 9 inji.
qarashaadka ku baxay dhismaha markabka lagu jilayay filimka wuxuu ahaa 7,500,000,000. tirada shaqaalaha ee ku dhintay markabka la dhisayay ee filimka lagu jilayay waxay ahaayeen 2 ruux. fardaha la saaray markabka korkiisa waxay noqotay 20 faras. tirada ugu badan ee uu qaadi karo markabka Titanic waa 3,547. tirada dadka saarara rakaabka ee shaqaalaha waxay ahaayeen 2,223 qof. tirada lamaanaha ee ku jiray dusha markabka oo la saaray waxay ahaayeen 13 ruux. koobabka biyaha lagu cabo ee markabka Titanic saaran 24 saac waxaa la isticmaalayay 14 koob, iyadoo bedelka alaabaha cusub mar walba la bedelayo. koobab ha noqoto masalaabta kala noqotay ahaayeen 40,000. sidoo kale khamriga saarnaa markabka Titanic wuxuu ahaa 1,000 dhalo. tirada doomaha yaryar ee markabka lagu qalabeeyay waxay ahaayeen 64 doomood, waxayna halkii doon mar qaadi karaysay 55 ruux. xogta iyo sheekada filimka Titanic intaas kuma koobna, laakiin waa in yar oo aniga aan soo ururiyay. haddii aad u baahan tahay waad soo baari kartaa, intaas in ka badan ayaad heli doontaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. intaasaan kusoo koobaynaa macna.